ninkan caadi loo inkiray warqadda waxay ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ninkan maalmihii dambe TikTok waad ku arkayseen isagoo gabdho qurux badan TikTok wata gaari qurux badan wata kala iska araga sheekada ninkan marka waxaan soo xasuustay idinkuna waa xasuusataan wadan waxaa jira la yiraahdo Equatorial Guinea oo galbeedka Afrika ku yaala West Africa Nigeria iyo daris leeyahay nin waxa u soo baxay marka la dhihi jiray Baltasar Ebanga Ngongo ninka dawladdu u shaqeey jiray Ecuador gabar wasiir hadhiin gabar xildhibaan hadhiin miduu dhalay taliye ciidan hadhiin miduu taraafik dhalay hadhiin mid gudoomiye degmo u dhalay hadhiin wax uu daaya ma laha kalluun amal uu dubtay ninkan markaan arkay ninkaasan soo xasuustay marka ninkan wuxuu sameey jiray maalmihii dambe gaari qurux badan watay gabdhihii magaalada kuwa dhaylada ahaa dhangalowga shushumowga leefleefowga butuleetiga sayruuqa iyo cuni calaaji calaash igay ay wixii dhananaanahay oo dhan gaarigu saartay anoo leh warniyo ninkan yaa u duceeyay ducadu ninka xagee uga timid anigoo leh waliba maalmihii dambe ninkan qaar dadku ay haystaan qaarna ay difaacayaan waa warqadan saaka la soo diray ra'iisul wasaarihii uu inkiray ninkan marka wuxuu yiri ninkan anagana nooma shaqeeyo dawladdu nooma shaqeeyo ninkan horta mid baa been loogaga sheegay ra'iisul wasaare Xamse iyo dawladdiisu been bay sheegeen ninkan inuu u shaqeyn ninkan wuxuu kamid ahaa mid kamid ah la taliyaasha qaaska ah ee xafiiska ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre haddaad xasuusataan fiidiyowga ninkan ma aragtaan ninka dadka salaamaya waliba ragga jilbu culusti waqooyi bari salaamaya ninkan waxa lagu magacaabaa Naasir Cige wuxuu kamid ahaa wafdigii hordhaca ahaa ee tagayay magaalada Laascaanood ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ka horeeyay ragii qaaska ahaa markii laga soo tagay ciidanka ragii kale ee qaaska ahaa ee ra'iisul wasaaraha kaga horeeyay Laascaanood ayuu ninkan kamid ahaa sidaad fiidiyowga ka aragtaan marka mid dawladdu been bay ku sheegtay ra'iisul wasaaruhuna been buu ku sheegay xafiiskiisaba in ninkan aysan garaneyn oo san u shaqeyn ninkan uu u shaqeynayay laakiin waxay ka cabsadeen fadeexada meesha ka soo socota ninkan isaguna ma xisaabtamin mar ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre isagoo aniga ii magacaabay ama iga dhigtay la taliye inaan isaga la taliyo oo iraado madaxweyne waxaana waa qaldiin waxaana waa saxsan yihiin waxaan sameeyno waxaan sameyn miyaan shita bursan lahaa ilaah baa ilaah man hal xab isaga iimaansado oo tartiibteeda bareefad u habaysta kalluunkeyga ma yeelina gaari iska roga ah wuxuu saartay ay magaalada wixii yaala qudaar oo dhan cambe qare babaay moos dhangalow wixii dhan waa u saartay TikTokna waa keenay